السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجي آخر الزمان توكس. برنامجka maanta waxaynu dul istaagaynaa bani Israa'iil cidda ay yihiin. bani Israa'iil ma qabiilba mise maaha, ma dad DNA wadaagaba mise maaha. dhammaan intaasoo dhan waxaynu kala soo bixi doonaa qur-aanka kariimka hadduu ilaahay raalli ka su-aalaha u horreeya aynu ka jawaabayna waxa weeye saan hore usoo sheegay iminka bani Israa'iil waa ayo. sidoo kale waxaynu eegaynaa oon ka jawaabaynaa imise wiil ayuu nebi nuux lahaa. si haddaba aynu u fahanno oon jawaab u helno labadaas su-aalood waxaynu dib ugu noqonaynaa qisadii nebi nuux calayhi salaatu wasalaam innaga oo markaa qur-aanka ka baadhayna. okay, qisada nebi nuux waxaad ka soo heli kartaa kutubta yuhuudda, kutubta kiristaanka iyo buugta islaamka ee daarul culuum box. markaad eegto dhinaca magaranaysaay qisooyinka yuhuudda iyo magaranaysaa qaabkay uga waramayaan, waxay uga waramayaan yuhuuddu in nebi nuux calayhi salaatu wasalaam 3 wiil oo uu dhalay iyo 3 xaas magaranaysaa 3 wiil nebi nuux iyo xaaskiisa oo markaa aynu isku geyno magaranaysaa 8 qof isku tegaya. 8daa qof baa doonta raacay bay qabaan, kiristaankuna saasay ku waafaqsan yihiin. There are little variations but asalku intaas baa doonta raacday bay leeyihiin. marka aad arrintaa aad soo qaadato waxay ka tegayaan totally in cid nebi nuux rumaysay calayhi salaatu wasalaam oo aan ahayn xaaskiisa iyo caruurtiisa inayba jirinba. okay, waa been weyn. beenta waxa inoo sheegaya qur-aanka kariimka inoo sheegaya. okay, markaad haddana timaad ma garanaysaay daarul culuum fikirka kale jira waxa weeye 3dii wiil ee ay sheegeen ma garanaysaay qolyaha kiristaanku ayaa la soo qaaday. waxaa lagu daray tii yuhuudda iyo kiristaanka ka timiday ayaa lagu daray. waxaa markaa laga soo dhex saaray new version. okay, qiso cusub baa laga soo dhex saaray inta wixii oo dhan laisku daray. markaa qur-aanka ku noqonno hadda waxaa ku caddaan doonta in 3daa farshanba ma garanaysaa qur-aanku ka soo horjeedo 3dooduba qalad yihiin. okay, inta barnaamijkale aan ku jirno waxa aynu ku baran doonaa oonu fahmi doonaa cidda ay yihiin dadkii laga soo tafiirmay daadkii weynaa kadib. okay, waan baran doonaa. waxaan kaloo baran doonaa ma garanaysaay macnaha famil uu ka dhigan yahay marka qur-aanka aanu ku noqonno. qur-aanku family muxuu u aqaanaa? ehel ma dad ma garanaysaay aabbihii hooye keliya wada dhaleenba, ma dad oday keliya hati wada dhaleenba family la idhahdaa mise macno kaley leedahay? taasna qur-aankaynu kala soo baxaynaa insha allahu tacaala. barnaamijkan intaan ku guda jirno ayaad ka bogan doontaa. qisadii markaa nebi nuux calayhi salaatu wasalaam garashooyinka cusub ee halkan maanta aad ka faa'iidi doonto ayaa waxay yihiin qaar ma garanaysaay maybe laga yaabo markii koowaad eed maqasho in ay tahay. welibana taasi waxay sii khuseyn doontaa marka aynu u galno qisadii nebi haaruun oo
aanu aragno inuu furo u yahay ma garanaysaay banu israa'iil fahankeeda nebi nuux calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay wamaa aamana macahu ilaa qaliil in yar unbaa rumaysay okay ilaahay subxaana wa tacaala inooma sheegin number kow the numbers dadka rumeeyey tiradoodu intay ahaayeen inooma sheegin second the names magacaantay lahaayeen inooma sheegin okay and why barnaamijyada xiga ayaynu kaga jawaabaynaa waa xikmadda ilaahay labadaasba waxay ma garanaysaa ay sir u yihiin ilaahay subxaana wa tacaala magacaanta intii rumaysay nebi nuux iyo tiradooduba okay dadka sheeganaya markaa in ay garanayaan iyagoonan ma garanaysaa burhaan cad oo qur-aanka ka yimiday aanu haysan ma garanaysaay 70 qof bay ahaayeen kan bay ahaayeen maya 8 qof un bay ahaayeen maya 3 wiiloo nuux uu dhalay un bay ahaayeen iyo xaasaskoogii waxaasoo dhan waxaa beeninaya oo ma garanaysaay meel cad ka istaagaya qur-aanka waanaad arki doontaa okay maadaama ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegay in nebi nuux in yar ay rumaysay okay waxaad sidoo kale ogsoonaataa ilaahay markii uu amray nebi nuux ma garanaysaay in uu doon sameeyo oo uu soo socdo daad weyn doontaasna ma garanaysaay uu saaro 3 baa markaa loo sheegay kow waxaa lagu yidhi number 1 familkaaga lagu yidhi markaa eegada 2 the believers inta ku rumaysay 3 waxaa lagu yidhi makhluuqa ilaahay oo lamaanayaal ah bearis ah of all creatures ma garanaysaay doonta saar 3 amar baa la siiyey okay intaas markaan fahnay halkaas number 1 waxa kaaga cad oo markaa yarba kasoo dhex baxaya beentii kutubta ma garanaysaa yuhuudda iyo kiristaanka ku qornayd ee ahayd cid aan caruurtiisa iyo nebi nuux xaaskiisa ahayn ma rumayno 3 wiil oo nebi nuux dhalay iyo xaasaskoogii iyo ma garanaysaay xaaskii nebi nuux baa doonta koray markaaba inay been tahay baa halkaa kasoo baxaysa because second command ka ma garanaysaay la siiyey nebi nuux waxay ahayd dadka rumeeyey in uu doonta saaro you see dadka rumeeyey the believers in uu doonta saaro waa command ayaa qur-aanka ku jirtaa la siiyey lagu yidhi dadka believerska ay ku rumeeyey ma garanaysaa doonta saar halkaas waxaanu ma garanaysaay qur-aanku ku beeninayaa in nebi nuux ehelkiisoo khaasa doonta ayna raacin kelmadda ehelna way noo soo noqon doonaa qur-aanka inoo furfuraya kolba mid baynu u daadegaynaa qur-aanka inoo furfuraya okay markan haddaba tegno immediate familkii ma garanaysaay nebi nuux intii ma garanaysaay familkiisii hoose yaa raacay yaan raacin qur-aanku suu uga warramay markaan dul tegno qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa ma garanaysaay in nebi nuux iyo wiilkiisa keli ahaa ee qur-aanku sheegay in aan la badbaadin they were not saved lama badbaadin ma garanaysaay lama badbaadinin yaga
waxayna ka mid noqdeen kuwii ma garanaysay gaaloobay. You see? tani waxay si cad uga duwan tahay ma garanaysay qisooyinkii yuhuudda iyo kiristaanku ay sheegayeen ee ma garanaysay ka sheekeynayay in nebi nuux faamilkiisii oo dhan ma garanaysay ay doonta raaceen. way ka duwan tahay. midda kale, halkan waxay inoo soo baxaysaa sheekada mala awaalka ah ee la samaystay ee culammada islaamkuna soo qaateen ee sheegaysa in 3 wiil oo uu dhalay nebi nuux doonta iyaguna soo raaceen in ay bug ahayd baa iyaduna halkaa ka soo baxaysa. why sababtay usoo baxaysa waxa weeye markaad isku xidho labadan, markaad isku xidho ma garanaysay arrintii dhacday wiilkii nebi nuux dhalay isaga ayaa iskaga hadhay in uu aabihii raaco because dee ilaahay ma rumaysan oo caqiidadaasi kumay jirin. kadib markuu buur u baxay ma garanaysay biyihii ma garanaysay isgaadheen mawjado waaweyn oo sida buurta ah ay socdaan, nebi nuux ay doontii la socoto uu la socdo doontii nebi nuux ayuu nebi nuux caleyhi salaatu wasalaam ku yidhi inankaygiiyo doonta nala soo kor hana ka mid noqonin kuwa gaaloobay. inankiisi wuxuu ugu jawaabay in ma garanaysay buurta koraayo buurtaana ka celin doonto ay buurtuna biyaha ka celin doonto. nebi nuux waa u jawaabay mar labaad oo wuxuu ku yidhi amarka ilaahay maanta qofuu ilaahay u naxariista mooyaane cid ka badbaadaysa ma jirto. iyagoo hadalkii isweydaarsanaya oo sidaa tahay ayaa ma garanaysay wave iyo mowj weyn ayaa kala dhex maray labadoodii, inankiina sidaasoo ku qarqoomay. okay, markii haddaba uu qarqoomay markaad isku xidho sababta iyo qaabka ilaahay u sharaxay wiilka nebi nuux ee qarqoomay oonan aanad ka soo helayn kutubta yuhuudda ka soo heli maysid. wiil uu dhalay ma garanaysaa in nebi nuux uu qarqoomay iyo qaabkan uu qarqoomo qur-aanku inugu sheegay kugu sheegi mayaan. kitaabyada kiristaankana ka soo heli maysid. this is the first time oo qur-aanku sheegayo moogtahay oo si detail ah oo cad siday wax u dhaceen uu inooga sheegayo. markaad eegta qur-aanku sidaa detailkee cad ee wiilkaa uga hadlay eenad ku xidho ducada nebi nuux ee ma garanaysay uu ilaahay baryayo uu odhanayo yaa rabbi inankaygu ma garanaysay wuxuu ka mid ahaa faamilkayga. labadaa markaad isku xidho these 2 dots ma garanaysaa waxaa kuu soo baxaya in nuux calayhi salaatu wasalaam uu lahaa inankaasoo keliya. markaa qaabka uu ma garanaysay ilaahay u baryay inuu inankiisa loo badbaadiyo, qaabkuu inankiisa u baryayey iyo sida ilaahay qisadan for the first time inanka nebi nuux ee qarqoomaya uu inoo sheegaya iyo hadalladii la isweydaarsaday. labadaa markaad isku geyso waxaa kuu soo baxaya in nebi nuux inankaas oo keliyata u lahaa. inama kale hadday jiraanna ilaahay sida uu inankaaba uga hadlay ayuu inoogu sheegi lahaa subxaana watacaala, laakiin inooma sheegin, which means maba jirin. okay, waa intaan kala soo dhex baxnay. marka haddaba aad eegto ma garanaysay qur-aanka sidoo kale qur-aankii wuxuu inoo sheegayaa oo ma garanaysay aad soo helaysaa in xaaskii nebi nuux iyada laftarkeeda ay ma garanaysay qarqoontay markii ay khiyaantay ma garanaysay caqiidadii nebi nuux gaalowday way qarqoontay kumana jirin kuwa
ma garanaysay badbaadiyo labada ma garanaysay aayadood markaad haddaba isku geyso taa wiilka ma garanaysay nebi nuux iyo ma garanaysay xaaskii nebi nuux in ay qarqoomeen waxaa kuu soo baxaya qur-aanku in uu xoogga saarayo oo uu sheegayo the true kinship ehelnimada ma aragtay dhabta ah ehelnimada dhabtii in ay tahay ma garanaysay the true kinship ehelnimada dhabtii marka diinta islaamka la joogo in ay tahay midda ku salaysan caqiidada okay iyo wanaagga soomad garan camalo saalix aynahayna mid keliya ku tiirsan ma garanaysay d n a iyo biological ties waa dhiigaygiyo anaa dhalay wax shaqaynaya maaha haddaan labadaa rukune kale ma garanaysaa qofku inuu camal saalixa leeyahay caqiido saalaxana leeyahay haddaynaan labadaa wadaagin macno ma samaynayso in uu dhiiggaagiya qur-aanku taasoo caddaynayaa kumana badbaadinayso dhinaca ilaahay marka dadkan emphasiska saaray ma garanaysay in dhiignimadu wax lagu noqonayo in dhiignimada ilaahay wax ku doortay in dhiignimadu ma garanaysay ay muhiim tahay ee qaarkood ma garanaysay markaad xitaa dadkeena usoo noqoto ay qaarkood maalin walba ku dadaalayaan nebi maxamed baan kasoo tafiiranay nebi nuux baan kasoo tafiiranay halkan baan kasoo tafiiranay ay raadinayaan meel ay ma garanaysay dhiig ahaan uga soo galaan nebiyadii iyo dadkii wanaagsanaaye ilaahay inayna dhinaca ilaahay waxaasi macno weyn ku fadhiyin wax jirana ahayn kuna badbaadinayn ma garanaysay dadkana kaa sarraysiin karin macno la-aan ay tahay ayuu ilaahay noo sheegayaa oo aayadaha iminka aan soo dulmarnay aanu ka fahmaynaa haddaba ayay ahaayeen dadkii ma garanaysay laga soo tafiirmay maadaama iminka sidaa inoo cad 3 wiil oo ma garanaysay laga soo tafiirmay oo qur-aanku sheegayaa ayna jirin yaa laga soo tafiirmay markaa bacda nuux kadib markaad haddaba u fiirsato qur-aankii dadka laga soo tafiirmay waxay noqonayaan dadkii tirada yaraa ee nebi nuux calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ee raacay ee ilaahay magacdooda qariyey ee ilaahay tiradooda qariyey dadkii oo dhan baa laga soo tafiirmay 3 qof lagama soo tafiirmin dhammaantood baa laga soo tafiirmay intay haayeen ilaahay baa og magacdoodii ilaahay baa og inta dumar ahayd iyo inta rag ahayd ilaahay baa og laakiin xaqiiqdu waxay noqonaysaa inay 3 cid oo 3 wiil oo keliya haata oo laga soo tafiirmay ma jirto arrintaas markaad u fiirsato cilmiga caadiga ee tus oo taabsiida ah xitaa taas buu taageersan yahay wax caddaynoo loo hayaa xitaa ma jirto ma garanaysaa inaa the great flood daadkii weynaa kadib 3 wiil oo keliya laga soo tafiirmay caddayn looma hayo hadda soomaad garan waa arrin la iska samaystay rag baa samaystay si ay dhiigga dadka kale u xalaashadaan dhulka dadka kale u xalaashadaan dadka qaarkood ma garanaysay u yidhaahdaan ma garanaysay waa dad in ma garanaysay istaahile in la gumeeyo ay nebi nuux been ka sheegaan oo yidhaahdaan nebi nuux baa ma garanaysay kuwani ma garanaysahay inkaaray ay yidhaahdaan ilaahay baa annagana fadilay because annagu hebel baana dhalay sidaasaanu uga fadilannahay dadka kale waa arrimo samays ah oo loo samaystay in ma garanaysay fikro gaar ah lagu hormarsado oo ummadaha qaarkoodna lagu yaraysto xaqoogana lagu diido laguna caburiyo laguna gumaysto arrimo isa soo jiro oo muddooyin taariikho badan soo socday weeye laakiin wax qur-aanka ku jiro oo qur-aanku taageersan yahay ama uu ayidayo oo waxaasaa saxiixa lagu dhaqmo leeyahay haba yaraatee maaha okay markaad haddaba tegto qur-aanka aan tegno aynu u fiirsano kelmadda famil waxa ay
ka dhigan tahay quraanka sharaxaya marka okay quraanka inoo sharaxaya marka aan dul tagno markaan dul tagno waxaan dul imanaynaa marka nabi nuux oo ilaahay la hadlaya moogta waa inankiisa markii moojii kala dhex mareen kadib weeye ayuu nabi nuux alayhi salaatu wasalaam leeyahay ilaahayow inankaygu waa ehelkaygii ya ilaahay subxaana watacaala markaa waa u jawaabayaa wuxuu ku odhanayaa qaala yaa nuux inahu laysa min ahlik ehelkaaga maaha okay ehelkaaga maaha inahu camalun ghayru saalix halkan camalun waa noun waxa laga dhigay in nahuudana loo celiyey wiilka inahu like camila ghayru saalix wuxuu sameeyey wiilku camal aan wanaagsanayn baa laga dhigay qaabka loo macneeyo kutubta ku arkay waa qalad waxay qalad ku tahay in nahuudani waxay u noqonaysaa camalka ducadan ma garanaysay nebi nuux ilaahay ku weydiisanayay inankiisa in la badbaadiyo bay u noqonaysaa ayaa camalun ghayru saalixna waa ficilkii uu sameeyey nebi nuux baa loo sheegayaa oo lagu leeyay wiilkaaga ood og tahay inuu kaa fikir duwan yahay ood og tahay in ma garanaysay uu soo raaco doonta oo aad la hadashay oo uu ku diiday in aad weliba aad tidhaahda markaa haddana ma garanaysay wiilkaygii hala badbaadiyo ya inahu camalun ghayru saalix waa ma garanaysay waa shaqo camal aan wanaagsanayn inaad dadka dhiig ugu doodo nebi nuuxow ilaahay baa ku leh marka halkan ilaahay markiiba wuxuu ina barayaa ehelnimadu inayna ahayn ehelnimadii mid dhiiga qofka aad og tahay in uu caqiidadaada ka leexday oo caqiido isku mida aydaan haysanna haddaad ugu doodo because waa dhiigaygii ilaahay wuxuu ku tilmaamay camalun ghayru saalix camal aan wanaagsanayn qofka camalkaa aan wanaagsanayn sameeyana ilaahay wuxuu uga dardaarmay nebi nuux an takuuna min ajaahiliin waxa weeye haddii qofku camalkaas sameeyo qabiilaysiga noocaasa ee qof aad ku taageeraysid isagoo aad og tahay inuu xun yahay ama camalka uu sameeyey uu qaldan yahay haddana qabiil markaad ku taageerto waxaad ka mid noqonaysaa jaahiliintu waa ayo waa kuwa ilaahay nuurkiisa ka goosto qabiilaysigu horta waa noocaas marka qabiilaysigu waayo wuxuu ku furayaa kow nin aad isku qabiil tihiin oo xaqdarro iminka gabadh ku kubsaday in aad difaacdo just because waa dhiiggaagii laakiin waxaad ogsoonaanaysaa marka aad sidaas samayso eed ku taageerto qalad dembi cad oo ay galeen aad ku taageerto waxaad ka mid noqonaysaa kuwa jaahiliinta jaahiliintu macnaha waxa weeye kuwa aan waxbana qorin waxna akhriyin maaha keliya ilaahay wuxuu kaa goosanayaa nuurkii aad ku kala garan lahayd sax iyo qalad ayaa lagaa goosanayaa kadibna waxaa ku macaanaanaysa ma garanaysaay hawadaadaasaad iska raacaysaa waana kugu adkaanaysaa sax iyo qalad in aad kala saarto morally iyo ma garanaysaay caadiyanba waa kugu adkaanaysaa dadkuna badanka waa arki doonaano waa usoo baxaysaa in ma garanaysaay wax kaa qaldan yihiin hadda soomaad garan okay intaa oo kelmaddii weedhkii ma garanaysay famil ilaahay qur-aanka inoogu macnaynayo oo ilaahay uu ina baray faamilku iminka halkan in uuna hayn dhiig hadduu dhiig tahay nuux baa inankiisu noqon lahaa ehelkiisa oo ilaahay baa ku odhan lahaa
nebi nuuxow you're correct, inankaagu waa ehelkaaga. laakiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku yidhi maya, inankaagu maaha ehelkaagii, innahu laysa min ahlik. hadda soo maad fahmi. sabab nebi nuux laftarkiisiina waa la canaantay, waxa lagu yidhi innahu camalun kayru saalix. in aabad u doodo ma garanaysaye inankii dhiiggaaga ahaa waa camalun kayru saalix. waxaana looga digay inuu ka mid noqdo kuwa ilaahay nuurkiisa kala noqdo. halkan markaa waxa crucial ah oo aada u muhiim ah oo uu qur-aanku taageerayaa oo uu inoo sheegayaa oo ilaahay ka digayaa siyaasadda ma garanaysaye supremacyga ku salaysan iyo taageeradeeduba ee dhiigga lagu salaynayo, sida binu israa'iil, sida ta qabiilada, ee dhiigga laga dhigayo in ay keenayso nuurka ilaahay in uu kaa xidho. hadda soo maad garan. intaas uun maahina ilaahay waa ka digayaa oo nebi nuux baa lagu canaananayaa calayhi salaatu wasalaam. hadda soo maad fahmin. maadaamuu qur-aanku arrintan ka digayo oo uu ka digayo oo nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu qur-aanku ila leeyahay cidda u dhow yahee dee waa cidda ilaahay rumaysay unbaa nebi magaranaysaye ibraahimna u dhow. cidda nebi ibraahim waddadiisa qaadatay ee rumaysay unbaa u dhow. laakiin nin ma garanaysaye aftarsiin ku sheeganaya wuu dhalay iyo aabbu ii ahaa ma garanaysaye ma aha, no, uma dhowa. marka qur-aanku mar kaste wuu ka soo horjeedaa arrimahan la siyaasadeeyey ee dhiigga laga dhigay ee ma garanaysaye hebel baan kasoo tafiiranay oo ma garanaysaye nebi ilaahay haa iyo dad kaloo saalixiinba ahaa la sheeganayo, amba ha laga soo tafiirma amba ayaan laga soo tafiirmine wax horta importana oo qur-aanku uu ka hadlayaba maahinba. concept oo qur-aanku ma garanaysaye soo bandhigayo oo uu faybargaraynayo oo uu ina barayo oo inaan ku dayanno uu rabo maahinba. maadaamayna hayn waxaan oo dhan rag baa samaystay oo isku keenkeenay oo ma garanaysaye dadkii adduunka marsaday oo weli ku taagan oo raba inay marsadaan. okay, aynu usoo noqono markaa tobagii baan weli ku dhex jirnaa. intaas markaan soo fahnay, muhiimaddu markaa waxay noqonaysaa oo ilaahay uuna barayaa dadka laga soo tafiirmay inay yihiin intii tirada yarayd ee nebi nuux calayhi salaatu wasalaam raacday. markaad halkaa aynu sii raacno amaradii nebi nuux la siiyey ee saddexda ahaa ee lagu yidhi qaad faamilkaaga, okay, kow, ee lagu yidhi dadka ku rumeeyey qaad, ee lagu yidhi ma garanaysaye xayawaanka emberis u qaad iyagoo lamaano ah, labalabadaa u qaad. saddexdaa amar maadaamuu faamilkii iyo believerkii isla socdaan ayaa waxaan odhan lahaa kelmadda ehel labadaa macnoba way leedahay, iyadoo famil dhiigana way sheegaysaa, sidoo kale waxay sheegaysaa ma garanaysaa famil caqiide ah. kolba contextka siday ugu jirto wey. maadaama labadaa macno unbay leedahay, laakiin macno dhiiga uun ma laha. waa ehel bay fikir ah iyo ehel dhiiga labadaba way leedahay. maadaama inamo kale aan qabnoon leenahay, inamo kaloo doontaa raacay ma jirto, kelmaddii ehel iyo believerna ay isku daba xigaan amarka nebi nuux la siinayo qur-aanka. waxa markaa su-aasha imanaysaa markaa waxay tahay xaaskii nebi nuuxna ay qarqoontay, inan keli haata ayuu lahaayoo inankiina wuu qarqoomay annali, inamo kalena meeshii aynu ka saarnay. ehelka markaa halkaa ku jira maxay noqon karaan? allahu yaclam. fikirkayga waxaan qabaa
cidda markaa halkaa buuxinaysa ku jirta waxa weeye gabdho nebi nuux uu dhalay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baana og, baa halkaa soo geli karaa. Because qur-aankii arrintaa may ka hor imanaysaa? maya, qur-aanku ma soo hadal qaadinba wax gabadh ah, laakiin waxaan qabaa haddii inamo ay jiraan sida inankaa kaleba uu u soo hadal qaaday buu soo hadal qaadi lahaa, maadaama meesha markaa ehel uu ku jiro oo ma garanaysaay haddana believerkii ay ku jiraan gabdho uu dhalay nebi nuux in ay doonta la socdeenna waa possibility, high possibility. ilaahay baana subxaana wa tacaala og. okay, conclusionka markaan usoo daadegno waxaanu horta ogaanaynaa sheekadan markaa samayska ah ee saddexda wiil mid ka mida dadka madowgaa kasoo tafiirmo nebi nuux baa calayhi salaatu wasalaam habaari laleeyahay waa sheeko aan jirin, waa false. mid ka midana laleeyahay ma garanaysaay annaga unbaa kasoo tafiiranay oo yahuudiya carabtuba isku haystaan iyo yurubiyaanku. hadda soo maad garan, annagaa kasoo tafiiranay iyo annagaa kasoo tafiiranay, hadda soo maad fahmin. arrintaana waa been. waxaa kaloo beena ninka laleeyahay yajuuj iyo maajuuj iyo indhayarta iyo waxyaalahaasa kasoo tafiirmay, ninkaasna waa been. yajuuj iyo maajuujna sidaan barnaamijkii hore idinku soo gudbiyey maaha yajuuj iyo maajuuj, maaha dhiig. yajuuj iyo maajuuj qolooyin iyo qabiil dhiig ka dhexeeya maaha. okay, they are not. hadda soo maad fahmin. yajuuj iyo maajuuj waxa ka dhexeeya waxa weeye waa fikir, waa idea corruption ku saabsan ayaa ka dhaxaysay ka wada shaqeeyaan. haddii ideadooda aad qaadatid yajuuj iyo maajuuj baa tahay baan nidhi. marka halkaas laftarkeeda way isku xidhmaysaa. waxaa inoo soo baxaya ma garanaysaay sawir qurux badan bay istegaysaa, iskama hor imanayaan. hadda soo maad fahmin. markaad yajuuj iyo maajuuj dhiig bay ahaayeen tirahdid, qoladan kalena dhiig bay noqonayaan ee subrimaasiga sheeganaya. qoladii dhiigga noqonaysa yajuuj iyo maajuuj waxaa lagugu tilmaamay inayba iyagaba hayn, maadaamuu maanta fikirka ugu xun iyo ma garanaysa tacadiga bini-aadanka ka dhanka ah adduunka ay wadaan isla qolooyinkan saam sheeganayay ay wadaan. dee dad kale oo masaakiin oo waxba dembi gelin oo ma garanaysaay victim u ah kuwa ayaa ma garanaysa ayaad ka dhex raadinaya yajuuj iyo maajuuj, ama waaba sii lumiyo sida dadka qaarkood aaminsan yihiin waxaad u haysanaya yajuuj iyo maajuuj inay godod weli ku hoos jiraan inay soo bixin. waxaan oo dhan waxaa loo sameeyey distraction si xaqiiqda aad uga leexato lagaaga qariyo. laakiin markaad sidaa u kala qaadid imika aynuu baadhayna aad u baadhid waxaa kuu soo baxaya waxaan o dhan inay bug yihiin sheekooyinkan lasoo farsamaystay. okay, waxaan kasoo gudubno markaa aynu soconno, waayo waxaan rabnaa in aynu gaadhno beri israa'iil. hadda soo maad fahmin. qisada markaa bini israa'iil waxaa ma garanaysaay u ah furo u ah nebi haaruun calayhi salaatu wasalaam. hadda soo maad garan, nebi haaruun baa furo u ah. sidee buu ugu yahay ayaynu ka jawaabaynaa. markaa waxaad horta aanu fahanaa inkastoo dadka qaarkood ay amba culamada qaarkood ay isku haystaan nebi haaruun ma nebi unbuu ahaa oo rasuul ma ahayn, iyo labadaba wuu ahaa iyo muu ahayn. inagu qur-aankaynu ka duulaynaa saan hore u sheegay, waynu ka jawaabaynaa. waxaana gunaanadkaygu yahay nebi haaruun calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulna ahaa, nebina ahaa, rasuulna ahaa. okay,